shirka golaha maamul ee caasimadaha wadamada islaamka oo ka furmay hotelka kaambiska caasimadda dalkani jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarada wadamada islaamka qaybo badan oo kamid ah waxaana kulankaas furay ra'iisul wasaaraha dalkani Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo halkaas soo dhaweyn ugu muujiyay guud ahaan madaxdii kala duwanaa ee shirkaasi ka soo qayb galay shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo wafdi ballaaran oo ay kamid ahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir oo uu hogaaminayay shirkan ayaa waxaa muddadii uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay isku soo dhawaanshiyaha wadamada islaamka caasimadahooda ana ugu horeyn goobtaasi khudbad ka jeedisay Faaduma Cawaale Cismaan oo iyadu ah maayarka caasimadda dalkani Jabuuti waxayna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay shirkan iyada oo tilmaantay in shirkan uu yahay mid wax weyn ka bedeli doono marka loo eego hawlaha isku xirka iyo horumarinta caasimadaha wadamada islaamka waxaa sidoo kale kulankani ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay shirkani soo qaban qaabiyay maamulka caasimadda dalkani Jabuuti kan oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa waxaanu wareysanay ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow waxaana ka warbixinayaa shirkan iyo ahmiyadda gaarka uu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan Jabuuti joogno isla markaana duqa magaalada Jabuuti Faaduma Cawaale Cismaan ay si heer sare ugu soo dhaweysay isla markaana anagoo ku xurmeynayna iyadana shirkan ay soo qaban qaabisay abaabuleyso wadamada islaamka maayaradooda inaan joogno sharaf weyn bay noo tahay garab istaagno maayarada Faaduma aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno shirkan isaga ah waxaan rajaynaynaa in anagana qayb ka noqon doono oo muhiim u ah بعدما أي شركدون لو دورتي فأذوما أننا سومال هذا وان قرب تاجرنا مركز بانو فرح سنة وحندونينا أننا مقالوين كعاصمدها دولة الإسلام إنه نقدم كوا حرير دويشة كوا كوا الشقة هرمر كودا كوا سيدي عالم ككلا محاولة ترتمل هنا ويستاجا مركز أننا وقرب بحبانو نقولنا مايرada Jabuuti mar walba ogeyn Jabuuti inay ahayd wadanka kaliya ee maaragtay aan walaalahan hay mar walba u taagnaa sidii Soomaaliya cageeda isugu taagi lahayd isla markaana intaasoo muddadii dhibka aan ku jirnayna garab istaagnaa maantana in muxuu ahaa anagii aan halkan nimaadno caasimadda Jabuuti runtii sharaf weyn bay noo tahay waxaan sidoo kale wareysanay Faaduma Cawaale Cismaan oo iyaduna ah maayarka caasimadda dalkani Jabuuti marka maanta waxaan fursad anaga noo noqotay amba chance-kan aan helnay in caasimadda lagu qabto Jabuuti waa dadaalka madaxweynaha Alxaaji Ismaaciil Margele waxa kale oo anagu fursadan anagu ka faa'iideysanayna labadaas sanadood xilka haynayno mas'uulka sare ee organization-gan wax badan mashaariic badan baan insha Allah ka hirgelin doona haduu Ilaahay na gaarsiyo mashaariicdaasi oo ku salaysnaanaya qurxinta caasimadeena Jabuuti alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaana la jooga maayaradii islaamka waxa fursadan qaaliga horta anagu aan siinayna meerka magaalada Beytul Qudus oo halkan la jooga oo aad iyo aad aan u hambalyeynayno isaga oo wadankiisa ma aragtay mashaakilaadku ay ka jiraan caasimadda laakiin hadana jecelaystay inuu ma aragtay shirkan ka soo qayb galo ومركي يقول رئيس جبوتي لو قبض شركة كان لمدا وحنا شركة وسورة قليل إن هجان كمامل كاسي هجان كأور كاسي عاصمتها ودمدا إسلام كلا دورته فاضمة عوالة عثمان أو يدو ما يركع عاصمة دلكني جبوتي وحنا قاب تاسي هذه ذاك الدول لو قدون سيي ما ذي كل الدوانا كسعتي عاصمتها ودمدا إسلام ميكائيل عبد الرشيد برة راديو تلفزيون كقرن الصوماليات جبوتي